واتحدى داوديال هدان ku bilowno mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay uga hadlayaan kala taagnaanshaha siyaasadda ee u dhaxaysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo arrinta xiisadda dhalisay ee u dhaxaysa dawladda federaalka ah iyo madaxda hore ee madaxweyne Sheekh Shariif ee laga horjoogsaday inuu ka qayb galo ama tago magaalada Kismaayo kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ee ku sugan caasimadda ayaa lagu falanqeeyay sida war-saxaafadeedka lagu sheegay xaaladaha adag ee uu dalku marayo iyo dhacdooyinka ahaa ku xadgudubka sida xildhibaanadu sheegeen dastuurka ee isdaba joogga ah xildhibaanadu waxay isla qiimeeyeen mas'uuliyadda loo egmaday golayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee wakiilka uga ahaayeen shacabka Soomaaliyeed sida war-saxaafadeedka ku qoran waxaana isla qireen in xukuumaddu in xildhibaanadu ka gaabiyeen mas'uuliyadooda ahayd korjeegteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda waxaana ku ballameen sida war-saxaafadeedka ku cad in ay u istaagaan gudashada waajibkooda dastuuriga ah xildhibaanadu waxay ku doodeen waxay ka doodeen qodobada dastuuriga ah ee sida bareerka ah baarlamaanka Soomaaliya ay u dayaceen haddaba waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah sareynta iyo ilaalinta dastuurka wadajirka ummadda iyo midnimada mabaadi'da federaalka iyo sidoo kale kala madax banaanida hay'adaha qaranka war-saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanada waxaa sidoo kale loogu baaqay in la qaado xayiraadda dhinaca socdaalka ah ee xukuumaddu saartay magaalada Baydhabo xildhibaanada waxay cambaareeyeen sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ku tumashada sharciga ku tagrifalka awoodda dawladnimada cunaqabataynta shacabka Soomaaliyeed sida war-saxaafadeedka ku cad xildhibaanada waxay ku baaqayaan in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ay gutaan xilka ummadda uga fadhido haddaba waa tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee go'aanka soo saaray waxa haatan mowduucaas hadaynu falanqeyno stuudiyaha ila jooga xildhibaan Cabdi Fataax daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UPD mudane xildhibaan markii ugu horeysa ku soo dhaw goobjoog aad baad u mahadsan tahay inaad noo timid haddaan su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo xildhibaanada ma hadda ayay soo xasuusteen haddaama tooda u raacno in ay shaqeeyaan sidoodaba bismillahi raxmaani raxiim horta dee sidaad ka wada socotaba shaqada dawladdu saddexdeeda hay-adood way isku xiran yihiin xildhibaanaduna shaqadii saddexda hay-ada loo dirsaday sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda iyo representationka ay dad ku matalaan baarlamaanka tii unbay rabaan inay gutaan in badanna si awoodeysan loo isticmaalaya awoodda qaybaheeda kale ee qaranku uu leeyahay ay xilalkoodii u gudan kari waayeen waxaa ii muuqda sida habdhaqanka dawladda waxaa ka muuqda qarisku xoornimo iyo fadhibaradnimo siyaasadeed oo ciyaalku marka ay fadhibaradka yihiin wadagto ma qiyaasi karaan khatarta haddaad daba dhiibto iyo haddii aad masu dhiibto labada afku gelinaya yacni waxaa ii muuqata in xukuumadda federaalkii maanta habdhaqankeedu waa habdhaqanka fadhibaradka caruurnimo uu yahay waxaa kale oo ii muuqata dee waad aragtaayo madaxweynihii hore ee qaranka ayaa oo dalkan magac iyo maamuusba kule oo u soo shaqeeyay u soo halgamay oo dhiiggiisa iyo dhididkiisaba u soo horay ayaa laga hor istaagay xaqi dastuuriga ahaa ku qornaa qodobka 20aad iyo qodobka 21aad ay u ogolaanayeen inuu meeshii uu rababa qofka muwaadinka arrintuna hadda xaqiiqatan way ka weynteen madaxweyne laga celiyay maxaa la yiraahdaa garoonka waxaad kaloo ka warhaysaa madaxweyne ku-xigeenkii qaranka marka yani madaxweynuhu joogo waxaa ku-xigeen ah oo haddii uu tago talada qabanaya gudoomiyaha baarlamaanka wadigooga laydhkii iyo biyihii iyo cuntadii waa laga gooyey markii ay isqabteen waa gartay yani taas haddaan sharaxo waxaan rabaa intaan mawduucayna inaan sharaxo qarisku xoornimada ka muuqda siyaasadda hadda dawladdu ku dhamayso waad ogeedo yani gudoomiyihii baarlamaanka ee ka horreeyey ayaa iyadoo qasab lagaga qaaday meesha oo xoog loo isticmaalay waxaa muuqda qarisku xoornimo aan waxba loo aabayeelin waa tahay haddaan su-aal ku weydiiyo xildhibaanadiina shiray waxaad sheegteen inaad qirsantihiin inaad hawshiinni ka gaabiseen taas miyaanad ka hadlayn maxaa uga gaabiseen oo shaqadiina u qaban weyseen sida war-saxaafadeed ku cad
anagu shaqadii kama aan gaabin shaqadii waa watan hadda socota dhaliila waa jiraan laakiin shaqadu waa tan socoto waa shaqadana laga hortaagay inaan dawladda kor joogtayna anaga kaalinteeda koowaad ee aan dawladnimada ka soo galinay dawladda baan kor joogtayntii kuwadna wixii ay qaladayna aan rabnaa inaan sheegno shaqadu markaa waa socota laakiin dhaliila waa jiraan dhaliila waa weyn waa tahay sida madaxweynihii hore shalayba sheegay hay'adihii dastuuriga ah oo baarlamaanka ugu horeeyo ma shaqeeyaan ayuu yiri taas ma ku raacsan tahay adiga inuuna shaqeyn baarlamaanka طبعا waa ku raacsanahay laakiin waxa mudan in la isweydiiyo sababta baarlamaanka uu shaqeynay baarlamaanka shaqadiisa waxa hortaagan xukuumadda oo haysata awoodii hirgelinta maxaa la yiraahdaa sharciga hirgelinta maxaa la yiraahdaa wixii go'aanaha dawladda ka soo anagu hadda go'aan soo saarno ma hirgelin karno waayo toolskii iyo instrumentskii lagu hirgelin lahaa dawladdaas marka dawladda hor istaagtay in baarlamaanku shaqeeye baarlamaanka actually marka dhinac ka guddo waa la fashilay baarlamaanku uu fashilmo shaqadiisa ma qabsado fashilku laakiin xukunkii wuxuu ka yimid xukuumadda oo wixii ay judi lahayd bay isugu geynaysaa in baarlamaanku uu shaqeeyo waa tahay waxa hadda laga hadlayo ma aha tusaale ahaan shacabka wadooyinka ka xiran yihiin oo baarlamaanku u doodayo waxay tahay doorashadii Axmed Madoobe oo xukuumaddu tiri waxba kama jiraan ay ahayd aan la dabaaldegno ayaa doodu tahay iyo laba dabaaldegaysaan waanad ogeyd arinta hawada mamnuucisteeda mar hore ay soo bilaabatay oo madaxweynihii hore intuuna ku soo beegmin ayay dhacday marka adinku intaad u shaqeyn lahaydeen baahiyaha saxda ah ee shacabka waxaad ka hadlaysaan soo ma aha cid kastoo madaxweynihii isdiidan yihiin madaxda dawladda isdiidan yihiin waa la dabaaldegayna waa taageerayna ma waxaan gudanaynaa waajibaadkayga dastuuriga ah oo sheegay yani inaanu saddex ka mid ah aan ku sheegay kiima talaada ayaan gudanaynaa dadkii aanu matalaynay ee qarankii Soomaaliyeed ee baarlamaanku matalayay ayuu danahoodii ka hadlayaa iyo maxaa la kolba wixii ku soo kordhay waxa ayana xusid mudan haddii madaxweynuhu doorashooyinkii Puntland ka dhacay uu tagay oo uu tahniyadeeyay oo waliba ka khudbadeeyay lagu soo dhaweeyay anagu ma fahmi karno waxa diidaya in deegaan kale oo Soomaaliyeed doorasho noocaas oo kala ah si soo madax banaan oo Puntland ay u qabsatay oo madax banaan doorashooyinkiisa u qabsaday sifa loogu diido garan mayno mid labaad waxa kale taas laakiin hada su'aalka meeshaasan rabaa inaan su'aalka weydiiyo aan ku dhameystiro wadii su'aasha wadiga weydiinay waxa kale oo anagu aan aad uga wanaagsan nidaamka يعني سيد الدولة أي وجدت وقته فرق سياسي ذلك كنا أو أي مقطع نوع قارس كحورني معه أو عقاب وضرات لجسو رجيو أدي دجان كهذا كنا ما أنت هلك هدي من حوله وقف للدراسية ومدحين أحمد من لواء نربين يعني جبل أنا ندين ولا درما وحنا نتصل معنا مركب ورسالة عادي وقتها يو سومالي لامباسي يبقى كتر يعني درسان مدحينها هذا مش جوا أي كسور رجين ورقبتين حق حوله وملايين دولار ay kaga qasartay ummadii Soomaaliyeed arigooda ka dhoof way kamid yihiin dagaaladu isagu ka soo jeedo dad kamid oo arigooda meesha ka dhoofiyay ciqaabo dareeda ay kamid noqdeen aan ku dhameystiro ciqaabo dareeda waxa kamid ah Puntland oo nidaam soo jiray oo dawladda federaalka ah ka horeeyay in la yiri wixii waxbarashadii iyo nidaamka sida wax u baran jirteen oo ka daaweyn actually waxa idin iyaga wax laga barto oo ka daaweyn ka federaalka in iyadoo lagu qasbiyo ciqaabo dareed loogu soo rido la yiri wixii niba lama aqoonsana ciqaabo dareed dii ugu dambeysay waa tan Jubbaland ku dhacdo la yiri leerkiyo biyihii waa la idin ka tiraya hawadii idin soo marmayso ilmaha yare ku xanuunsan maanta doolo Ismaaciil lagu keeni jiray $25 $290 buuxmaya tigidhkii doolo laga soo hadaan waxaasan Puntland iyo Jubbaland kiiskooda ayaad isbarbar dhigtay waana dooda mucaaradka hadda ay aad u xoojinayaan Puntland sidaa sheegtay iyo Jubbaland isku siyaasiya ma aha jiritaanka dawlad gobol Puntland intaasoo madaxweyne soo bedeshay taas ma waxa ula jeedaa waxa Kismaayo ka dhacay waxay xalaal iyo nadiif u haayeen sida Puntland wixii ka dhacay kale doorasho ka dhacday Jubbaland doorashada anagu waananu taageernay waananu ku qanacsanay natiijadii ka soo baxday qofkii isagu ka qayb gali waayay processka meesha ka socday maxalliga ah ee dawlad goboleedku uu garwadeenka ka ahaa gudiyada doorashada iyo baarlamaankeedu ay garwadeenka ka ahayn qofkii ku qanci waayay ee ku qancay nin halkan joogo oo 4 kiiloomitir aan xukumin oo dawladda federaalka ah wasaaradda arrimaha gudaha waraaqa ay soo saartay raba inuu Jubbaland ka hirgeliyo
أنا waxaan u aragnaa inay qalad ku tahay ummadda Jubbaland halka degan sida ay qalad ba ugu tahay kuwa Puntland sida ay qalad u tahay kuwa gobolada kale ee maartay sida xalaasha u qabsada doorashooyinkooda waa gartay ummadda Jubbaland qayb badan oo kamid ah waxay qabaan wax Kismaayo ka dhacay inay tahay in la boobay awoodii halkaas oo madaxweynaha Axmed Madoobe uunan process sax ah ku iman kuwaas adinka shaqo kuma lihidin sidaas ah horta qofka doodaas horta waa dood ay xukuumaddu soo bandhigtay ay jeceshahay inay dadka ku majir habaabiso laakiin xukuumaddu meesha kaliya ee ay u madax banaanayd inay doorasho ka qabato oo ay sida doonto ka yeesho baydhabo weyn ogeeyno rasaas bay dadkii kala laafay baydhabo oo soo noqonayna su'aasheeda hadaan u laabto mid laba ninkii yiri markii international community ay tiri war dadkiina haleynina war dadkiina xirina war dadkiina cabrinina wadiga ogooda PNGD iyo in lagu mastaafuriyay ninkii qaramada midoobay ka socday oo hal bil mise laba bilood waxaan ahayn dalka ma joogay marka hadaan teedi ku laabto tan Kismaayo waxa dhameystire qariska xornimada dawladda iyo waxyaalaha ay sameynayso ay Soomaaliya ku gelinayso isolationka iyo maxaa la yiraahdaa godka ay adagtay in ummadda ay ka soo ay ku gelinayso inta laga hadlaa u baahan in xukuumadda dooda ay wada ah maxaa la yiraahdaa doorasho si xaq ah uga dhicin Jubbaland ee aan la verify gareyn karin Jubbaland inay dadkeegu ku kala qaybsan yihiin wax bay dhabo ka jira waxa Kismaayo ka taagan mad qirsantiin horta adinka xilibana horta doorasho dhan waa lagu qaybsan in dab lagu sii daaro oo gaas iyo baasiin loo dooro meeshaba la gubo adinka hadda marka waxaad ka shaqeynaysaan Soomaa ahaan inaad la dabaaldegtaan qayb badan oo kamid ah shacabka Jubbaland doorasho ay nin ay qabaan inuu ka boobay process-koodii inaad la Soomaa ahaan doodiino hadda doorasho sideedaba waa la kala helaa qaladaad way ka dhacaan doorashada ugu tii ugu dambeysay Soomaaliland doorasho ka dhacday doorasho xisbiya ay ku tartamayaan ba ka dhacay xisbiyadu natiijadii ka soo baxday kuma ay wada qanacsaneen xisbiyo waliba halkan dad yar oo tiro kooban baa codeynaya xisbiyo boqolaal kun ay codeynayaan ayaa doorashadii contested bay lama oranin wixii meesha ka soo baxay oo dhan hal tuuro oo hal lagu daro maxaa la yiraahdaa midda waxa ka horeysay mid maxaa la yiraahdaa 80 cod oo kaliya lagu kala helay oo daahir riyaale iyo ay ku tartameen waa gartay marka sideedaba qiil ma noqonayso doorashada natiijadii ka soo baxday baa qaldanayd qiil noqon maysa meesha dabxa lagu shido ee waxa ka fiican oo dawladuna ay gacan ka geysan kartaa dadka meesha doorashada ku murmay in la isu keeno la isu maslaxo loo tabaalo waramo xaaladda dalka ka jirta maxaa la yiraahdaa looga hoga tusaaleeyo dadkan waxay u baahan yihiin cid isku wadee uma baahna cid qori isugu dhiibto sida Jubbaland oo kale ama Jubbaland hadda sida waxaan ka wada galmudug oo kale cid labadii heshiiska ahayd kuwii heshiiska xukuumadda u wada dhisnayd cid isku dirto kala kaxaysan looma baahna waxa loo baahan yahay cid inta kala maqan isu keento oo heshiisaysa waa tahay haddaan su'aal ku weydiiyo hadiiba doodu taagan tahay dawladda oo doorashada Kismaayo diidan iyo Kismaayo oo adinku mucaaradka iyo maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe aad rabtaan in hawsha haday sheekadu intaas ku kooban tahay warkan kale shalay ninka gudoomiyaha xisbiga UPD ku hadlayay xaaladdu faraha ka baxaysa adinka laftigiina soo uma muuqataan in ka badbadinaysaan waxa saxda ah ee jira anoo ka badbadin xaaladda jirto ma runta ka sheegnay waxaan ka sheegnay in dastuurka si isdaba joog loogu tumanayay 3 sanadood la soo dhaafay 3 sanadoodna ay tahay waqti ku filan oo loo dul qaadan karo sharci jabin iyo maxaa la yiraahdaa hamiyad degleyn iyo in awoodii qaranku u wadaan haasi gaar loo wada isticmaalo waxaanu ka digaynaa wax weeye sidaan hadda ku sheegay in dad magac iyo maamuus dalkan ku leh laga hor istaago xaqoodii dastuuriga ahayd waxaanu ka digaynaa in madaxweyne ku xigeen leyrkii biyaha laga gooyo waxaanu ka digaynaa in intii birmageedada ahayd oday Soomaaliyeed oo muddo 50 iyo dheeraad soo shaqeynayay in tunka baarlamaanka uu hogaaminayay inta laga soo qabto banaanka loo tuuro waxaan ka digaynaa in maamul goboleedadii inoo dhisnaa iyo dadkii madaxda ahaa kolba qofkii aan ila raay ahayn la yiraahdo waxaan ku bedelaynaa qasab adinka hadda sida qoraalka hadda ay soo saareen mudanayaasha baarlamaanka qaarkood ku cad iyo sida hawshiinaba ka muuqata ma haysaan farsamooyin sharciya
oo mechanismkii baarlamaanka inaad mari kartaan oo xukuumadda halkaas ku kor joogteysaan oo kula xisaabtantaan haddaad adinku taas ka gabteen eedda soo adinka laftigiina ma lihidin wax kasta xukuumaddu khalado maya anagu sidaan kuu sheegayaba baarlamaan awoodii ciidan iyo midii maaliyadeed iyo midii maamul loo isticmaalayo sidii loogu wiiqi lahaa shaqadiisa ma shaqayn karo marka anagu eedda ma lihina eedda waxa iskale qayb ka mid ah eedda baarlamaanku ma xirna laakiin waa furan yahay dabcan qayb horta eedda ka mid ah anigu way iska duwi maayo baarlamaanku eedu leeyahay waa gartay waa ka garaabaynaa eedda aan leeyahay taas haddaad farta ku waaweynayso maxay tahay eeddaas boqolkiiba 90 eedaha jira waxaa iskale xukuumadda oo rabta inay curyaamiso hay-adihii dhigeedaha waa xukuumadan dadkii soo doortay anu kamid maaha soo doortay laakiin xukuumad aan islaamnimo laga martiyay golayaasha adduunka markay tagta la hortaagan waxaanu nahay secularist oo faslu diin can dawla baanu aaminsantahay oo aan meesha su'aal ka weydiiyay dhamaystiro oo aan laga martiyaynin qarannimo iyo nationalism oo meel walba oo arkaysa tii ugu dambeysay ninkii dalkan u soo halgamayay 30 sanadood si dib yar loogu dhiibay cadawgii uu la halgamayay oo aan laga martiin qarannimada waa tahay waxaan rabaa doorka xildhibaanada inaan su'aal ka weydiiyo xildhibaanada hadda ka hor halkan aan kugu wareystay waxaa sheegtay in xildhibaanada qaar ay xukuumadda maaragtay jeebka u galeen sidaa sheegtay marka ka waran dooda odhanaysa in haddii adinku ay cilada tahay oo qaar ay xukuumaddii la jaal noqdeen oo iskaba kaba tanaasuleen shaqadii baarlamaanka ma jirtaa eedaas way jirtaa in wax laga qabtana u baahan laakiin waxay ku soo noqonaysaa aakhirka ninka maaliyadda iyo lacagta wax tusaale yar baa maanta ugu dambeysay waxay xildhibaanadu ka cabariyeen in ciidamadii ilaaladooda ahaa qaarkood laga qaaday qof xamar jooga oo ciidamadii ilaalada ahayd iyadoo aan la ogeyn leeyahay ciidankii waxa weeye waxa laga ereeyaa shaqada hadii aan xerada ku iman muddo inta ku siman macnaheedu waxa weeye saacadaha qofka uu ka maqan ciidanku uu ka maqnaa xildhibaanada anytime baa la dili karay marka horta dawladda aan la dhilgaraynayna waa dawlad aan ka xishoonaynin wixii ay ahayd in laga xishoodo waa dawlad bilaa birmageeda waa gartay shalay gudoomiyaha hadlay wuxuu sheegay war qayb ahaan dadku ay u arkeen war alarmin oo kala ah wuxuu yiri dad madaafiic ridi yaqaana magaalada joogaan oo maxaa hadalkaas ma review gareyseen xisbi ahaan dib u eegteen waxa kaaga filantaa ninkii dalkan u soo halgamay ee broonkii uu saarnaayay uu kula dagaalamay cadawga Soomaaliyeed uu wali ciidamada ku jiray al-shabaab uu kamid yahay in la yiraahdo garoonka laga soo celinayo ma garanaysaa wixii juhdihay aad soo gashay oo dhan tanaasulkii ummadda Soomaaliyeed oo soo sameystay dalkan warlordski iyo balaayadii haysatay aad ka xoreysay in la yiraahdo wixii oo dhan waxba kama soo qaadayso anytime ba xataa hadda waxba kama duwana in la xiray oo kale qof xorriyadii asaasiga ahayd ee uu lahaa laga qaaday sideedaba xarig waa xorriyadoo laga qaado hadii lagu yiraahdo ha soconina waxay la mid tahay xarigii bay la mid tahay hadii hada qol lagu xidho iyo hadii gobol lagu xidho la yiraahdo gobolka kama bixi kartid actually labadaba waxa asal u ah in lagu xadgudbay xaqi dastuuriga ahayd ee aad u lahayd inaad dhaqaaqdo marka madaxweynihii qaranka ee magaca iyo maamuuskaba ku lahaa dalkan marka sidaa loola dhaqmo aniga in laga waramo halgankii dalkan loo soo galay uma arko dhibaato uma arko waa gartay haddii dawladda aanay aqoonsanayn Jubbaland oo ay u aragto cid boobtay awooddii halkaas taalay in adinka laftigiina dawladda kala doodaan intaanan aadan la dabaaldegin madaxweyne Axmed Madoobe intaan la dabaaldegin soo taas sax ma ahayn maxaa u raadi weyseen farsamada Jubbaland aqoonsan waayo annaguna isaga aqoonsan hadduu Jubbaland aqoonsan waayo Somaliland isaga aqoonsan mayso hadduu Jubbaland aqoonsan waayo Puntland aqoonsan mayso dalkii 65% bay kuwaasi ka yihiin Jubbaland lagama hadlayo qof madax ka ah oo process la rabay habraac wasaaradda arrimaha gudaha u sameysay khilaafay baa laga hadlayaa si kala baan kugu dhigo haddii madaxweyne Dani uu farmaajo aqoonsan waayo isna aqoonsan maayo haddii madaxweynaha Jubbaland ee la doortay ee la caleema saari doono dhawaane Axmed Madoobe la yiraahdo haddii uu aqbali waayo farmaajo isna aqbali maayo marka kubaddu waxay la taalaa farmaajo ama wuxuu aqbalayaa in maxaa la yiraahdaa madax qaran oo sida sharciga uu isagu legitimacy uu ku joogo sharciga uu ku joogo dalka ku jooga
oo qaybta uu xukumo qayb ka ballaaran xukuma haddii aanu intaa ogolayn iyana ogolaan maayaan annagana been ku sheegi mayno xukunkiisa ogolaan mayno hadduu Puntland iyo Jubbaland uu diidan yahay oo aqoonsanay annana ma aqoonsanay waa gartay waxaa arrinta la yaab kale ay tahay xisbiga UPD hogaamiyihiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Jubbaland marba sidan oo kala dhacday uuna aqoonsanayn madaxweynaha Jubbaland process uu ku yimid Axmed Madoobe markaas soo madaxweynuhu gar processkii buu Axmed Madoobe khalday ma ahayn isla doodan hadda taala maxaa xukuumadda mise xukuumadda wax kastoo keento in laga safto ayaa yahay halku dhigina maya anaga halku dhigayga waxa weeye dastuur bayna kala xaga dastuurkaasi xaqa uu siiyo hayga qaadi anigana xaqa uu ku siiyo ka qaadi maayo madaxweynihii qaranka tahay waan ku aqoonsanahay waa lagu doortay dastuurkan yar baa lagu doortay buuggan yar beejiska kooban ayaa lagu doortay buuggii baan aqoonsanahay oo madaxweynenimo kuugu ixtiraamayna oo kuugu aqoonsanahay buuggii ha dhaafin buuggii hadaad dhaafto ood mar labaad dhaafto ood mar saddexaad dhaafto ood qodobadiisii wada jabiso markaanu kuu dignaanu ku nidhaahnay walaalow ha jabini de buuggan bayna kala hagaye haddii aad uga sii darto anagu waxaan u aragnaa inaanay istaahilin in madaxweyne lagu yeero wada impeachment baan uga keenay mar labaadna impeachment baan ka keeninaa waa gartay haddii sii socdo waa tahay haddaa xildhibaano tihiin go-aankan wasaaradda gaadiidka soo saartay xukuumadda federaalka ah ma hubiseen in xitaa madaxweynaha ma kala hadasheen maadaama hay-aduhu kala madax bannaan yihiin madaxweynuhu meeshan wararkeeda waa la kala helaa aniguna dowladda qayb ka mid ah waan wararkeeda waan helaa waa gartay madaxweynuhu markuu hadda kasii dhoofayay maxaa la yiraahdaa qorsho xataa ma ahayn in maalinta la joojiyay maalinta ku xigay in la joojiyay abe in maalintii la joojiyo uu Sheekh Shariif dalka ka soo degay waxay ahayd wax ka dhashay airport madaxweynahana bixiyay amarkaas markaas maaha wax qarsoon maaha sheekadu Omar way dhaafsiisantay waa gartay dood kale waxa jirta oranaysa madaxweynaha sida ula socotid New York jira halkaas sharci golaha guud uga qayb galaya marka ragiin mucaaradka ah inaad doonayseen inaad platformka caleemasaarka uga faa'iideysataan inaad waxa jira iyo wax ka waaweyn aad far waaweyn ku qortaan maxaa ka jira gobol isaga ka mid ah caleemasaar ka socday inuu horta ku farxaabaheedo waxyaalaha New York la tagayo dadkan horta madaxweynuhu waxa aaminsan in loogu madaxweyne ilaa hadda inuu madaxweyne yahay ma aaminsana in loogu dhaartay inuu madaxweyne yahay buu baahay danni waa shaqaale isaga u shaqeeya annagu waxaan nahay dadkii isaga soo doortay maxaa la yiraahdaa Jubbaland dawladda Axmed Madoobe waa shaqaale isaga u shaqeeya yani nin gafarnaradiisi dalka u maamulayay ku mashquulsan sidii uu waxyeelayn lahaa yani madaxweynuhu inuu madaxweyne yahayba uma qabo in isaga loo sheegay way madaxweynihii qaranka tahay shaqada ku taala way ka ballaarantay la yootanka maamul goboleedka iyo shaqaalahaagii hoose way ka ballaarantay waxa ku yaala in adduunka la soo dhil garayso oo dalkani khayraadka ku jira iyo maxaa la yiraahdaa siyaasadiisa guud iyo inaad waxa ka shaqeysaa priorities ka kala weyn waa gartay hadda waxa iska caadi ah xildhibaanada marka saan oo kale jahwareer siyaasi iska jiro inay qolaba inta isfahmaysa meelo ku shiraan maxaa hal intaas ka badana warqadda soo saarteen oo arkay maxaa hal intaas dhaafsiisan oo u haysaan oo haday tahay inaad diblomaasiyadeysaan oo siyaasadii gacmo geljir hoos baa loo dhaqay taas ku daydaan iyo hadii mechanismka farsamooyinka baarlamaanka isticmaalaysaan oo wax ka qabanaysaan waxa jira hortan waxaan leenahay haani horta gumbe ka talantaa dalkan qarannimadiisa dib baa la isugu kabkabayaa meelaha kaliya laga soo kabkabi karaan waxa weeye maamul goboleed kasta gudihiisa in laga soo hagaajiyo kii jiray in la isku diray maaha oo la kala kaxeeyo midkii la doorto maaha in la yiraahdo doorashada sax maaha haddii qofkii aan rabay aanu ka soo bixin in qarjajac lagu wado oo cid walba dhibka halkiisa lagu gaarsiiyo oo xamar ay noqoto meel dhibka looga dhoofiyo maamul goboleedada sida xal ku iman maayo anagu waxaanu halka maxaa u aragtaa madaxweynuhu waxaanu aaminsanahay inuu ku soo noqdo xayndaabka dastuurka oo dastuurka intuu dib u akhriyo uu ogaado waxa loo ogol yahay iyo waxa aan loo ogolayn taasi way midda labaad madaxweynaha shaqooyinka u yaala way ka ballaaran yihiin kuwan hadda ku mashquulsan yahay shaqooyinka u yaala waxa ka ah dalkan geedi socodkiisa dimuqraadiyadda in hore loo mariyo waxa kamid ah in dalkan doorasho laga qabto 2020 nabada waxii uu dhaxalka iyo diiwaanka siyaasadeed uu ku gali lahaa madaxweynuhu
waxaan leenahay ha ka shaqeeyo ha ka baxo waxyaalaha nitty-gritty-ga isagana time-ka ka luminaya ummadda Soomaaliyeedna qiimaha weyn ku kacay dib u dhigay dalka. وقرت أدبا وما سنتهي حلوان عبد الفتاح طاهر أيو هذا وديال هذان مقالة جرو تكنو دتك شعب كيكون المقالة ذا سياك أردت ديبتي حيرات دولة الفدرال كالصومالية صارتي سعودال مدحويني يورا الصومالية شريف شيخ أحمد وكتجي لها مقالة ذاك اسماعيو. شعبك كبر المقالة عاصمة قروة هاي وذكري تسيده أركان دحين هو الصومالية شريف شيخ أحمد ودولة الفدرال الصومالية دوان كتب جسيم درون كبيار ده مقالة إسماعيل سوى وقت على مسارك دحينها جبل عن الدولة أركتيها كل دوان الشعب هل كان قروة كلمتين رفض شوف كمان حقادني هي بلد موضوع هاي تاجرسيه وهاي كتاجر دولة ديارته بحجري دون صدح برية مقالة كسمايو حرتك المرجال إمام جبلان. waxaan arkaa arinta uu Kismaayo ugu socdana yahay wax fiican haduu wax qabanayo xamar buu ka qaban lahaa dowladda Soomaaliya anagu waa taageersanahay iyadaan u baahanahay iyada iyo wixii nooceeda oo wax qabanaya maanta khalkhal loo baahna ninkii wax qabanaya weelku kuntukoonka nin waliba gurigiisa nabad ka dhaliyo ana ka raadiyo waxa meel kale loo aado in wax la isku diro in dib la sameeyo in xasarad laga shaqeeyo waxaan u arkaa inay yahay wax munaasib laakiin shacab ba saddex bir diyaaradii lagu joojiyay raacay waa muqaddas laga joojiyo way shacabku waa qaldan yihiin wadada ay ku socdaan baa waqada khaldana Kismaayo ninkii maanta ku socdaa waxaan u aragnaa nin khalkhalka wada inuu yahay marka shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin siyaasad furan oo gebi ahaan gobolada Soomaaliyeed ma baahna siyaasad furan ma baahna siyaasad matqaana xadirina ma baahna la xirfado kulki badi wax sida intii barnaamijka saddexda waxaan baleenayaa madaxweyne marka Sheekh Shariif anna waxaan dhihi lahayn madaxweyne ahayd 4 sano cid kuma faragelin marka nabad iyo nolol iyo nimanka ninka la farmaajo khayre hawshooda faraha uga bax 4 sanadood cafis weydiisan cidna baad madaxweyne noqotay cidna kula hadlin waliba adoo xasuuq geystay run ahaantii labadiina nin oo madaxweynayaasha soo ahaan jiray oo labadiina waa hadlay xilli waxa jirtay madax soo ahaydeen wixii dalka dan u ahna talaabada waa qaadi jirteen waxaadna jeclaydeen oo sax ahayd in la idinku garab istaago wixii wax qabada inaad maanta mucaaradaan wax idinka soconaya maahan anigu waxaan u arkaa maxamed Siciid arinta Kismaayo ka taagan horta dalku wuxuu leeyahay madaxweyne waxa ka ah farmaajo maamul goboleeyaashuna waxay leeyihiin dastuur u gaar ah madaxweyne dastuur buu leeyahay raayahan anu waxaan qabaa maamul goboleeyaashu inay xadkooda soo dhaafeen madaxweynuhuna waa ku saxsan yahay dalka wixii dan u ah inuu ku hogaamiyo wixii qalad ka ah inuu ka horjoogsamo waa wixii loo doortay arinta Jubbaland baan ka hadlayaa masiirka ummadda waxay ku jirtaa horta qof kasta sidoo og yahay wadajirka iyo midnimada arinta dawladda federaalka ay ku talaabsatay oo ah inaan arinta laga qayb gelin maamul goboleedada wixii khaldan oo jiritaan ka soo horjeeda inaan la taageerin arinta waa ku taageersanahay dawladda Soomaaliya federaalka dawladdu dalka taleesan ayada oo dalkan maslaxadiisa wixii dan aragta wixii dawladdaasi dan u aragta anagu shacabka ku raacsanahay ma aha in loo burburiyo nin walba dantiisa khaaska ah dawladda waana ka soo horjeednaa haddaan nahay shacabka waxaan leenahay madaxdii waxaan idin haynaa xushmad joojiya arrinkaas aranka kala duwan ee shacabka ku dhaqan caasimada Puntland ee Garowe ay ka bixiyeen sida ay arkaan madaxweynaha hore Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ee laga joojiyay inuu u dowlad Kismaayo ayaa waxa ku soo aadsaa xilli madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka dibadiisa uu ku maqan yahay oo shir uga qayb galayo magaalada New York ee dalka Mareykanka dhinaca kale waxaa jira siyaasiyiin kala duwan oo ku kala qaybsamay arrintan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka joojisay madaxweynaha hore Soomaaliya Shariif Sheikh inuu Kismaayo u dilo iyadoo qaybtoodna ay Shariif ku taageereen ay leeyihiin oo ku saxnaa in aan laga joojin Shariif qaybtoodna ay taageersan yihiin in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka joojiso عود عليه ربعين تبغى تشوف قال له الكروي
waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Garowe oo ka aragti dhiibanayay isur istaaga dawladda ku sameysay socdaalka madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo dadkaas ayaa u dambeeyay guud ahaan barnaamijkeena